saakay sidiiba waxba sidii ka daray meel walba way xiran tahay nimankii nabadiidka ay waxay soo rogeen inay magaalada wax dhuumashaal ee awalba wax ku imaan jireen wax gelin waxna aysan ka bixin go'aankaas ay qaateen magaaladu waxa way aad u dhibaataysan tahay dadku cagabarar uu ku jiraa waxaan igiin sheegaynaa xildhibaanaheena sharafta leh noo yimid sadar muuqda su'aal ka dhan indhihiina saaka wax u ahaayaan wax badan waa igin tusnay dadka buula burte baaqaas inaad naga gaarsiideen maamul goboleedka Hirshabeelle hay'adaha gargaarka dawladda federaalka waliba hay'adda gargaarka masiibooyinka Khadiija Maxamed Deeriye waxaan leenahay degmada buula burte ku dhalatay ku soo wax baratay meelo badan oo kale way tagtay laakiin buula burte indhahay ka qabsatay intaasna naga gaarsiiyay hadii Ilaahay yiraahdo aaday magaaladu baaba'san tahay degmada buula burte maanta dhibaatada haysta mid dad loo sheegi kara maahan laakiin waxaan gaarsiinaynaa isteedkii alguud oo madaxdu ahaa iyo federaalka iyo hay'adaha daneeyo Soomaaliya ummadda maanta dhibaatada haysta laba bir hortaalo qoladii nabadiidkeed intii jid soo gasho dhamay ka xireen wax soo galo oo raashin amaba in nolosha bini'aadamada inta ku nooshahay ee ku noolaan karaan ma jirto jalaqsi waa sidoo kale maana tagin laakiin tuulooyinka tagna dadka ku noolay marka aragno beerka ku soo baxay qof wax bini'aadan loo sheegi kara ma marka waxaan gaarsiinaynaa oo af dheer ku sheegaynaa dhibaatada saa aragnay waa sawir weyni kaamirina soo dhaxligna ceebay nagu noqotay waayo dhibaato aan la sheegi karin dadku sida badan 80% xoogooday ku noolaayeen hal qof meel ka shaqeeya ma jirto in beeri yarkaay ay tacbadeen ayaha ka qaatay waxaan safar ku joognay magaalada Buula Burde annagoo ka nimid magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle waxaan u nimid arrimo badan laakiin mid noogu darneed maanta indhaha anaga aan ku aragnay ee shalay waxay ahayd arrimo oo xagga cuniyari magaaladan Buula Burde iyo nawaaxigeeda saaka waxaan socdaal ku tagnay ilaa 5 tuulo in 6 tuulo waxaan ku soo aragnay waxaan caadi ahayn sidaas darteed waxaan go'aansanay in dawladda federaalka aan la wadaagno waxaan ku soo aragnay magaalada Buula Burde oo ah waxyaabo aan la fiirsan karin oonan ku qurux badnayn bini'aadanimada dawladda federaalkana aanan sumcadeeda aysan ku jirin magaalada Buula Burde waxa ka jira musiibo cuniyari iyo caafimaad taasoo dawladda federaalka ayaantan aysan soo fiirinin waxa si gaar ah ugu codsanayna wasaaradda arrimaha gargaarka iyo musiibooyinka wasiiradeeda maama Khadiijo in magaalada Buula Burde il naxariis ay ku soo fiiriso ay soo aado imaado kontaroosho waxyaabaha ka jiro